noloshu way fududahay balse anaga ayaa ka dhigna mid adag. Guul kasta oo weyn waxaa ka horeeya balama adag. Taladaada alla u dhiibo, naftaada ku kalsoonow, rajadaada rajo sare ha ahaato. wax waliba aad doonaysid inaad bilowdo, horta bilowga hore bilow, kadibna way dhammaystirmi doontaa. Ha cabsan, araja dhigin, hamigaaga asaraya mar waliba. qof waliba anaga naga mid ah hadaf gooni ah ayuu leeyahay, laakiin haddaad meeshaada fadhiso ma gaari doontid hadafkaaga. hadda dhaqaaq, u dhaqaaq hadafkaaga inaad ka soo mari dhaliso. cidna ha sugin. marba haddii aad geesinimo u leedahay in aad shay bilowdo, shaygaad bilowdo waad dhammaystiri kartaa. hadday kuu caddaato in aadan hadafkaaga gaari karin, xaaladdaada un beddel. noloshaada adiga oo keliya ayaa beddeli kara, ma jirto cid kale kuu samayn karta middaasi. ma beddeli kartid waxa aad tahay, keliya waxaad beddeli kartaa waxa aad qabato, kadib ayay isbeddelaysaa qorshaha aad rabtid inaad beddesho. noloshu way weji badan tahay, ee qaabil wejigii kugu soo aaddo, weliba adigoo dhoola caddaynaya. wixii aad raadiskiisa aad badiso mar un waad helaysaa insha allah. noloshu waa 10% waxa adiga kugu dhaca, 90% waa sidaa adiga ugu jawaab celiso. micnaha cafisku waa in aad iska ilowdo wixii horay oo tegay. markii aad diiradda saarto suurtagalnimada waxaad helaysaa waddooyin badan oo xal kuu noqon kara. hadafyada waaweyn saaxib waa sida iftiimo waaweyn oo kale. nolol aan hadaf lahaynna waa nolol mugdi ah iyo safar daal ah. qofku markuu hadaf leeyahay halkoo u socda ayaa u cad. himiladiisu way saraysaa, hooshuna way dardargelisaa. taagni aan hadaf lahaynna waa hool la'aan. dhaqdhaqaaq aan hadaf lahaynna waa daal. socod aan hadaf lahaynna waa iska taagtaagsi. xitaa xayawaanada hadaf ayay ka leeyihiin nolosha. waa 2 hadaf oo kale ah in ay wax cunaan iyo in aan la cunin. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.